internetka maanta waa aalad lagama maarmaan u ah nolosha aadanaha. Howlo badan oo muhiim ah ayaa lagu qabsadaa, sida isku gudbinta xogaha, wararka, iyo shaqada. Dadka qaar ayaa ku ganacsado, kuwana wax ayay ku bartaan. Meelo badan oo Afrika iyo adduunka ahba, internetku waa qaali oo bulshadu ma wada heli karaan, qiimaha oo aad u sareeya awgeed. Soomaaliya oo ah dal hadda uun dagaalo ka soo kabsanaya, wadamada horumarayna aan lagu tiri karin, ayaa si yaab leh u noqday wadanka ugu internetka raqiisan Afrika iyo kuwa ugu horeeya dunida. Sida ku xusan xog ururin lagu sameeyay Cable UK sanadkii 2020 laguna sameeyay 228 dal, ayay Soomaaliya noqotay dalka ugu internetka raqiisan daatada qaaradda Afrika, waxayna sidoo kale noqotay dalka 7aad ee ugu raqiisan adduunka. qaaradda Afrika, tusaale ahaan Malawi halkii GB waa $25, halka Soomaaliya uu yahay 0.4. ma ahan arrin iska yimid, laakiin waa dadaalo ay waqti geliyeen ganacsatada Soomaalida oo isku dayay in shacabkooda u keenaan internet raqiis ah. Dhowr shirkadood oo adeegga internetka bixiya ayaa dalka ka jira. Dhalinta Soomaaliyeed ayaa ugu badan dadka isticmaala internetka, in ka badan 1.9 milyan ayaa si toos ah u isticmaasha internetka Soomaaliya, sida ku xusan xogta xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya. Soomaalida gudaha iyo kuwa dibadda ku nool ayuu internetku u yahay barkulan ay ku wadaagaan xogtooda, iskuna xal wareystaan. Haddaba daawade, haddii ay Soomaaliya ka mid tahay hogaamiyayaasha dalalka ugu raqiisan mobile internetka caalamka, ma tahay mid ka faa'iideysta?